waxaa markii aad noogu liitay maalmahan ganacsiga waxa ku socday hoos u dhac oo saa'ida dhanka kalena hadana waxa jirtay in sare oo ka isla asay hadana oo sameeynayo ayadoo wadanka ay ka jirta abaar baahsan ayaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa sare u kacay ganacsiga kala duwan kaas oo ay ku nool yihiin bulshada magaaladaas sare u kaca ganacsiga ayaa saameyn ku yeelatay dadka isdhaafsada kala iibsiga maciishada ee qaybta ka ah nolosha bulshada jirnatanaga oo lagu keenay wax la yiraahdo waxay naga gadnaa jirtay adoo $4 haddana saaka $20 ku degsanay marka shaygu markii oo kordho haddana lacagtiisa ayaan kordhinaa anaga waxa waay marka macaashada kortay markii ay kortana wixii kordha sida baalkaana kala anaga batiiqa u naqaan laakiin magaciisa saxda qajaar la yiraahdaa waxa soo kul bilowdo adigu ilaa 5 bilood camal ay soo bilaabatay qudaartu soo kortay lacagteeda soo kortay alxamdulillah markay soo kortay anagana lacagta dadka naga gadaan ku sii kordhinaa iyagu waxay ku qanacsan yihiin qudaartu meeshay ka imaan jirtay bixitaankeeda inuu yaraaday oo roob yaradu ay keento qofka dadka wax naga iibsana way ogyihiin anaguna way ognaa wax anaga aan ku kordhinaa maan waa wax xaq alla ka kordhay waay sababta sare u kaca maciishada ayay bulshadu ku tilmaameen abaaraha ka jira gobolka oo bilihii la soo dhaafay si xoogaystay taasoo dad badan xoolahoodii galaafatay maadaama ganacsiga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud uu ku tiirsan yahay dadka xoolo dhaqatada waxaana yaraatay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee xoolo dhaqatada waayii ugu dambeysay sida dareemaysan magaaladanu horumarkeedu wuxuu ku xiran yahay xoolaha nool ayuu ku xiran yahay maadaama ay sabeera lahayn maadaama aysan maaragtay lahayn maxal dhaxabado ku heeran iyo wiyaal iyo islahan waxay ganacsigu ku xiran yihiin xoolaha nool sanadii ugu dambeeyana waxa aad u liidanayay oo macnaha aan sidii maaragtay ku habooneed aanan u helinin roobkii sadaraadad waxa dhacay in abaaro isku xigay iyo roob laan isku xigtay dhacday markasto baadiyuhu xaaladiisu ay xumaatana magaalada xaaladeeda iyo ganacsigu aad u xumanayaan waxa markii aad noogu liitay maalmahan ganacsiga waxa ku socday hoos u dhac oo saa'ida dhanka kalena hadana waxa jirtay in sare oo ka isla asay hadana oo sameeynayo ganacsiga hal sano ka hor ama 2 sano ka hor shaygu qiimihii uu joogo waxa laga yaabaa boqolkiiba 10 lacag ka badan inay ku korortay maanta hadii adeega dalbatid adeegaadii markuu ku imaado maalin ka bacda ama 2 maalin ka bacda adeeg dalbatid waxa laga yaabaa qiimo ka badan inuu kugu imaado Gurceel waxay ku tilmaaman tahay inay tahay xarunta ganacsiga Galmudug hadaba bulshada ku nool degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa siyaabo kala duwan uga falcelisay arintaasi magaalada Gurceel runtii waa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada ganacsiga gobolka inay tahay way u qalantaa marka si loo fiirsho marka kuwa ayada la midka loo fiirsho way u qalantaa laakiin magaalooyin waaweyn waxa jira aysan ku barbiga karin oo shaatiga aysan gashan karin laakiin magaalooyinka la midka ayada marka loo fiirsho ku teedan magacaas waa la dhigi karaa way u qalantaa sadaraad dadkii markaad macaamilayeen waa meesha maadaama gobol ay tahay waxa laga yaabaa inay dareemaan xanuun badan iyo dhibaato badan markii qiimihii shalay asheen ka siisay qiimo ka bedelan maanta ka siisid aad u sheegto wuxuu ku leeyahay seesurta kulku tahay dadka qaar ma aamini karaan qiimuhu inuu maaragtay xagga ka badanayo anakan waxaan ku qasbanahay markasto qiimuhu dhinacaas oo ka kordho anakan wuxuu ku darno maxay la anakan waxba raadinayna marka dhibaato waxa jirta runtii badeecadii oo qaali noqotay iyo xoolihii deegaanka oo maaragtay abaaro iyo wax ku soo laabteen labadaas problem oo isbiirsaday ee deegaanka ka jira taas ayaana waxay keentay runtii maaragtay in ganacsigii gadashadiisa iyo soo laabashadiisa dadkii gada lahayd ay aad u yaraato isla markaasna asageen oo aad u kordho qaar ka mid ah bulshada ganacsatada ayaa sheegay in sare u kaca maciishada ay sababtay faham la'aan soo kala dhex gashay ayaga iyo dadkii wax laga iibinayay dadkiina macnaha waxa laga dhaadhaysiin karo oo sidii hore eegana ku rabaan aniga waa nagu qaadiyay marka hoogaa sare u kaca dareemayna sida kale macnaha waa iska adiga nolol maalmeed iska caadi ma sha Allah waa dareemi kartaa shaygi mar haddii laga soo tago oo gaari la soo saaro oo hamaali waxa ka soo cuno kii macnaha shaygu ku soo gaday oo hadii hawa ahaan lahayd hadii dhar ahaan lahayd asigana macnaha iyagu ka rabaan ilaa waa shaqeeyay marka asagana hadii discountkiisa ka jirto oo hamaali soo saaro oo gaariga keeno inta adigu soo gaarin shaygu waxa laga yaabaa inuu ugu yaraan 5 qof 6 qof ka soo markaas kadib adiguna waxa rabtaa marka inaad wax ka sii raadiso Ahmed Farah Mohamed SMS TV Gurceel